kani waa Thibaut Courtois dad badani waxay aaminsan yihiin inuu yahay goolhayaha ugu fiican ee jiilkiisa kuwa badanna waxayba qabaan inuu yahay kan ugu fiican taariikhda Real Madrid sidoo kalena waa goolhaye kamida kuwa kubadaha joojiya ee ugu fiican abid kubada cagta balse hameen gaar ah oo ahayd finalkii Champions League 2022 waxa uu ekaaday xayawaankan 8 lugood leh oo garoonka dhexdiisa ku jira kaliya ma uusan badbaadinayn kubadaha ee waxa uu ka hortagay khataraha iyadoo ay u ekayd in meel kasta oo jirkiisa kamid ah ay gacmo ka soo baxeen falcelintiisu waxay ahayd mid aan caadi ahayn hameenkaana ma ahayn kaliya goolhaye ee waxa dadku ay u arkayeen bahal galoofis xiran haddii aan dib u xasuusano Liverpoolna xil ciyaareedkaasi waxay doonayeen inay taariikh sameeyaan waxay ku riyoonayeen inay ku guuleystaan 4 koob oo waaweyn hal xilli ciyaareed xilli horeba waxay ku guuleysteen League Cup-ka iyo FA Cup-ka oo ay labadoodaba ku qaadeen rigoorayaal adag balse nasiib darro maalmo ka hor finalka Champions League waxay waayeen Premier League oo hal dhibic looga qaaday maalintii ugu dambeysay ee horyaalka kadib tartan aad u xiiso badnaa oo ay la galeen kooxda Manchester City hayeeshee himilo kale ayaa jirtay taasi oo u harsanayd waa Champions League tartanka ugu weyn waxay tageen Paris iyaga oo gaajaysan dhiiran isla markaana doonaya inay xil ciyaareedkooda ku dhameystaan si weyn balse jidkooda waxaa taagneyd Real Madrid koox xilli horeba samaysay mid kamid ah xil ciyaareedyada ugu fiican ee Champions League uguna yaab ka badnaa taariikhda dhow Madrid dhow jeer ayay u muuqatay inay burburtay xil ciyaareedka waxay u baahdeen soo laabashooyin mucjiso ah oo ay ku sameeyeen kulamadoodii PSG Chelsea iyo Manchester City si ay u gaaraan finalkan wareeg kasta waxa uu ahaa Thibaut Courtois kan badbaadinaya marka ay xaaladuhu adkaadaan haddana halkan ayay soo gaareen waa la garaacay waa laga shakiyay laakiin wali waa ay taagnaayeen Thibaut Courtois waxa uu ku jiray mid kamid ah bandhigyadii ugu waaweynaa ee noloshiisa dhanka Liverpool dhiirigelintoodu waxay ahayd mid aad u qoto dheer wali waxay xasuusanayeen guuldaradii ay kala kulmeen isla kooxdan isla heerkan iyo isla tartankan 4 sano ka hor waxay ku guuldareysteen finalkii Champions League ee 2018 oo ay Real Madrid ka qaaday guushaasi waxa qayb ka ahayd khaladaad waaweyn oo uu sameeyay goolhayihii Liverpool ee xilligaasi Loris Karius laakiin markan Liverpool waxay u timid argudasho tan waxa laga dareemi karay daqiiqadii ugu horeeyay ee ciyaarta waxay doonayeen inay Real Madrid dareento xanuunka ay dareemeen 2018 laakiin taasi ma dhicin habeenkan Thibaut Courtois ayaa jabiyay rikooro waxaana uu jabiyay qalbiye kale waxa uu sameeyay 9 badbaadin oo ciyaarta ah badbaadintii ugu horeysayna waxay timid daqiiqadii 16aad Trent Alexander-Arnold ayaa kubad ka helay Henderson waxaana uu meelo bannaan ka helay gudaha boxka kooxda Real Madrid kadibna kubad halis ayuu siiyay Mohamed Salah kaasoo isku dayay inuu si xeelad leh kubadda u gaarsiiyo shabaqa Real Madrid waxay ahayd bartilmaameed sax ah laakiin Thibaut Courtois ayaa joojiyay Real Madrid si fiican uma ciyaareen bilowgii ciyaarta sidaadeedna Liverpool mar kale ayay weerartay ilbiriqsiga gudaheed Luis Diaz ayaa toogtay goolka laakiin Dani Carvajal ayaa ka hor istaagay isla markaana Thiago Alcantara ayaa kubad qaloocan ku tuuray goolka Real Madrid hayeeshee Thibaut Courtois ayaa si sahlan u qabsaday Liverpool way sii kordhisay cadaadiska daqiiqadii 17aadna mar kale ayay weerar soo qaadeen Sadio Mane oo ku jira diilinta ganaaxa gudaheeda ayaa kubad ka helay Andre Robertson kadibna si degdeg ah ayuu kubad ugu diyaariyay Mohamed Salah kubadaasina hal taabasho ayuu ku toogtay goolka kubadda si fiican ayuu u laaday laakiin Thibaut Courtois ayaa ka dhigay badbaadintaasi mid sahlan Mohamed Salah runtii habeenkaasi waxa uu ku jiray xaalad gaar ah oo finalkii 2018 waxa laga saaray ciyaarta isagoo ooyaya kadib markii uu dhaawac u geystay Sergio Ramos qaybtii hore ee ciyaarta sida daraadeed ciyaartan wax gaar ah ayay u ahayd isaga kadib markii Liverpool ay gaartay finalkiina waxa uu sheegay hadal caan ah oo ahayd xisaab ayaa qabyo naga ah oo aan dhameystiri doona isagoo ula jeeday ciyaartii 2018 Mohamed Salah waxa uu ahaa mid aad u dhiiran ciyaartaasi si daacad ah hadii loo hadlana waxa uu sameeyay wax aad u fiican hadii uu san jiri lahayn Thibaut Courtois oo gacmo badan leh waxa laga yaabaa inay noqon lahayd mid kamid ah bandhigyada ugu fiicnaa ee taariikhda 20 daqiiqo ugu horeeyay Mohamed Salah laba jeer ayuu isku dayay inuu gool dhaliyo laakiin labadaba waxa joojiyay goolhayihii hore ee Chelsea Thibaut Courtois balse waa uu sii waday isku dayga daqiiqadii 21aad markaan Sadio Mane ayaa go'aansaday inuu tijaabiyo Thibaut Courtois dhinaca kale ee goolka ayuuna ka toogtay tani waxay ahayd fursadii ugu halista badnayd ee ilaa waqtigaasi qof walba waxa uu maleynayay in kubadda Sadio Mane ay dhaafi doonto goolhayaha laakiin waa ay dhaafi lahayd goolhaye kasta oo kale laakiin Courtois ma aha habeenkan goolhayaha reer Belgium waxa uu sameeyay badbaadin cajiib ah isaga oo kubaddii uu iska saaray ay birta ku sii dhacday kadibna si degdeg ah ayuu qabtay ka hor inta aysan kubaddu gaarin Mohamed Salah oo soo ordayay waqtigaasi ciyaartoyda Liverpool iyo taageerayaashoodu waxay bilaabeen inay xanaaqaan sidee ayaad ugu guuleysan kartaan ciyaartan haddii ninka taagan goolku uu muuqdo inuu leeyahay 8 gacmood oo uu meel kasta ka soo saarayo kubadda laakiin taasi ma joojin dadaalkooda daqiiqadii 34aad Mohamed Salah oo isku daygiisii lugaha ku fashilmay waxa uu isku dayay madax markan waxa uu kubad ka helay Trent Alexander-Arnold kadibna madax daciif ayuu la beegsaday goolka Courtois waase uu badbaadiyay daqiiqada yar ka hor dhamaadka qaybtii hore Real Madrid waxay u maleynayeen inay heleen fursadii ugu weyneed Karim Benzema oo ahaa ciyaaryahanka ugu fiican
fiican tartanka xilli ciyaareedkaasi ayaa kubad shabaqa gaarsiiyey kadib jahwareer ka dhashay dilinta garaaxa ee Liverpool laakiin farxaddii Real Madrid degdeg ayaa loo joojiyey kadib markii calan waduhu uu calanka taagay hubinta faarta ayaana qaadatay waqti dheer ilaa iyo 3 daqiiqo iyo 20 ilbiriqsi sababtuna waxay ahayd in garsooruhu isku dayay inuu hubiyo haddii Fabinho uu kubaddaasi si ula kaca u soo taabtay iyo in kale ugu dambeyntiina go'aankii garsoorka waa la xaqiijiyey oo gool maaha ciyaartuna qaybtii hore waxay ku dhamaatay eber iyo eber taageerayaasha Liverpool waxay rajeynayeen in qaybta nasashadu ay wax ka bedeli doonto qaab ciyaareedka Courtois laakiin taasi waxba kama aysan bedelin halkii qaybtii nasashadu ay saameyn ku yeelan lahayd Thibaut Courtois waxay noqotay inay saameysay diiradda kooxda Liverpool daqiiqadii 59 iyadoo ciyaartu ay u socotay qaab xiiso leh kooxda Real Madrid ayaa hoggaan ka qabatay Federico Valverde ayaa kubad xoogan ku soo tuuray dilinta garaaxa ee Liverpool halkaasi oo Viniciusna uu si dhumaalaysi uga soo baxsaday Trent Alexander-Arnold oo wardiye ka hayay si qarsoodi ah uu ku soo galay isla markaana uu shabaqa gaarsiiyey kubadda taasi waxay ahayd wadna jab weyn oo Liverpool ku dhacay laakiin hal dhinac oo wanaagsan ayaa jiray oo goolku waxa uu yimid waqti hore oo qaybtii labaad ah sida ay u ciyaarayeen tan iyo qaybtii hore Liverpool waxay rumaysnaayeen inay wali heli karayaan gool ka soo laabashada sida daraadeedna way is abaabuleen mar kale waxayna dib ugu soo noqdeen weerar degdega daqiiqada yar kadib Trent Alexander-Arnold ayaa kubadda khatar ku soo riday dilinta ganaaxa ee Real Madrid laakiin Courtois si degdeg ah ayuu u gaaray kubadda oo feer ayuu isaga bixiyay kahor inta uusan ciyaaryahan Liverpool gaarin daqiiqadii 64aadna Mohamed Salah ayaa si gaar ah u dhiiranaa isagoo kubad ka helay kabtan Jordan Henderson dhinaca midig kubaddaasi gudaha ayuu u soo galay kadibna waxa uu ku tuuray kubad qalloocan goolka meel ka baxsan dilinta ganaaxa dabcan waad qiyaasi kartaa oo Courtois ayaa mar kale halkaasi joogay si uu badbaadin u sameeyo markii ay Liverpool raadinayeen goolka barbaraha tababare Klopp waxa uu go'aansaday inuu sameeyo isbeddello waaweyn daqiiqadii 65aad waxa uu bixiyay Luis Diaz isagoo soo galiyay Diego Jota daqiiqadii 77aadna waxa uu bixiyay Henderson iyo Thiago Alcantara waxaana uu soo galiyay Naby Keita iyo Roberto Firmino si adraadeedna Liverpool waxay ciyaarta ku haysataa afar weeraryahan oo buuxa Diego Jota ayaa saameyn degdeg ah yeeshay markii uu ka soo kacay kursiga kaydka si sare ayuu u booday oo u madaxeeyay kubad jooga sare ah waxaana kubaddaasi u soo dhigay Mohamed Salah oo dhinaca goolka ordayay Salahna isagoo wax yar u jira goolka kubaddaasi waa uu ku tuuray goolka hayeeshee mar kale ayaa jooga waa ninkii Thibaut Courtois ee 8 gacmood lahaa Courtois waxa uu ahaa mid qarow iyo niyad jab ku riday hameenkaasi Mohamed Salah laakiin weli ma aysan dhammaan dhibaatadii uu geysanayay daqiiqada yar kadib waxa dhacday inay baasas degdeg ah isdhaafsadeen Roberto Firmino iyo Mohamed Salah taasoo ku dhamaatay in Salah uu isku dayo inuu banaanka ka toogto markan goolka kubaddaasina waxa ku sii dhacay Diego Jota oo gudaha ordayay taasoo wax yar bedeshay jihada kubadda laakiin xitaa taasi ma dhaafin Thibaut Courtois waxa uu wali ku guuleystay inuu gacanta ku taabto kubadda kadibna uu saaro koorno hadda ciyaartu waxa ay gashay daqiiqadii ugu dambeeyay laakiin Liverpool wali ma aysan quusan Mohamed Salah gaar ahaan wali ma uusan quusan daqiiqadii 82aad garab weerarkan waxa uu helay kubad dheer oo u soo tuuray Fabinho si qurux badan ayuu kubadda u dajiyay gudaha dilinta ganaaxa ayuu ku soo orday kadibna waxa uu ku toogtay lugtiisa midig Thibaut Courtois ayaa gacan ku tuuray kubaddaasi koornana u saaray Salahna dhulka ayuu garaacay taasoo muujinaysa calaamad ah xanuun final kale hadii ay ahaan lahayd waxa la aaminsan yahay inuu si fudud ku sameyn lahaa inuu hat-trick dhaliyo finalka Champions League laakiin Courtois xitaa hal gool waa uu diiday hameenkaasi goolahayaha reer Belgium waxa uu ahaa mid aan la jabin karin habeenkaasna Liverpool waxay sameeyeen 24 shoot oo ay tuureen taas oo 20 jeer ka badan isku daygii shudadka ee Real Madrid Liverpool 9 jeer ayay sameeyeen kubadaha loo yaqaan shoot on targetka 6 ka midana waxa riday Mohamed Salah laakiin mid kasta waxa badbaadinayay Courtois dhanka kale Real Madrid hal shoot on target ayay heleen oo ay gool ku dhaliyeen haddii runta la sheegana dabcan waxay u muuqataa midaan cadaalad ahayn dadka qaarkood waxa ay yiraahdaan Liverpool nasiib xumo ayaa ku dhacday laakiin waxaan oran karnaa Courtois ayaa ahaa nasiibka Real Madrid ciyaartu haddii ay sii socon lahayd 90 daqiiqo oo kale dadka qaar ayaa aaminsan xitaa Liverpool ma dhaafi lahayn Thibaut Courtois waxa habeenkaas ku jiray qaab cajiib ah 9 badbaadin iyo 3 kubadood oo jooga sare u badbaadiyay sida daraadeedna sida iska caadiga ah waxa uu noqday ciyaaryahankii ugu fiicnaa kulanka finalka waxa sidoo kale uu galay buugga rikoorada waa goolhayihii sameeyay badbaadinta ugu badan ee finalka Champions League taariikhda iyo badbaadinta ugu badan ee hal ciyaar taariikhda Real Madrid inkastoo dadku ay yiraahdeen waxa uu ekaa sidii inuu 8 gacmood leeyahay haddana tababare Klopp waxa uu arkay wax intaasi ka badan markii uu ka hadlay waqtigiisii Liverpool kadib markii uu ka tagay 2024 Klopp waxa uu sheegay in ciyaartooydiisu ay si fiican u ciyaareen finalkii 2022 waxa uu sheegay inay ku dhawaadeen in 3 daqiiqo kastaba ay shoot sameeyaan sidoo kale
goolhayaha Real Madrid waxa uu muuqday ayuu yiri sidii inuu leeyahay 12 gacmood aragtidiisana Courtois ayaa ahaa farqiga ciyaarta waxa uu sheegay ciyaartoyda Real Madrid ay marar badan sameeyeen boosashino qaldan ku dhawaad 23 jeer laakiin kooxdiisu aysan ku ciqaabin ma ahayn sababta difaaca jiiba oo ay Real Madrid lahayd laakiin sababta waxa uu si toos ah u yiri waa Thibaut Courtois sidaas ayuu u weynaa u xoogana una ahaa mid qalbi jab ah bandhiga habeenkaasi ee Courtois runtiina dad badan waxay aaminsan yihiin in noqon doonto bandhigii goolhaye ugu fiicnaa taariikhda finalka Champions League lagana yaabay xitaa final kasta oo weyn inuu yahay haddii uu Klopp yiri 8 gacmood ka badan ayuu Courtois lahaa waa kuma ayay kula tahay xayawaanka 12 gacmood leh ee aan ku masali karno qaybta commentiga nugula wadaag taasina dhab ahaantii waxay ahayd xilligii Thibaut Courtois uu ku ciyaaray riyadii Liverpool ee habeenkaasi